aqoon kororsigan ayaa loo furay saraakiil caafimaad dambi baarayaal iyo garsoorayaal kamid ah kuwa ka howlgala degmooyinka Baran, Carmo, Waaciye, Dangaro iyo Xarfo iyo Boocame waxaana sidoo kale qayb ka ah tababarkan wakiilada xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha dowladda Puntland ee degmooyinkaasi. xubnahan ayaa aqoon kororsiga loogu sameeyay hanaanka ka jawaabista kiisaska tacadiyada ee ka dhaca degmooyinka ay ka howlgalaan. gudoomiyaha xafiiska xuquuqul aadanaha ee dowladda Puntland Maxamed Yuusuf Cali ayaa ugu horeyntiiba ka hadlay furitaanka tababarkan waxaana uu ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay. ujeedka la isugu keenay kulankan oo aan rabo inaan madaxda halkan ila fadhida aan ka brief gareeyo waxay tahay halkan waxaa fadhiya maxkamadii dambi baaristii oo booliska matalaysay, garsoorkii oo maxkamadda iyo xeer ilaalintii ay matalahayeen, iyo caafimaadkii ay matalahayeen MCA-yadii iyo maaragtay qaybahoodii kala duwan ee maaragtay kaaliyaasha caafimaadka iyo wakiiladii ama monitorskii maaragtay korjoogayaasha xafiiska xuquuq aadanaha ee degmooyinka. waxaa tihiin team, degmo kasta waa teamkii wada shaqaynayay. waxaan u keenay gudoomiyaha maxkamadda sare si inteennaba halkan fadhido waxaan ka shaqeynaa wax la yiraahdo cadaaladda ayaan ka shaqeynaa. hay'adaha cadaaladda ayaa isugu soo biyo shubanaa. hadduu kiis dhaco caafimaad buu u baahan yahay, baaris buu u baahan yahay, boolis soo qabto u baahan yahay, xafiis xuquuq aadana oo mataqaana tala bixin iyo ka warhayn sameeyo u baahan yahay, korjoogteyn iyo maxkamadii garsoorka oo cadaaladda fulinaysay. halkaas ayuu kiisku mataqaana marahaya. sababta la isugu keenay in la isugu sii dhaweeyo oo la isugu keen baro oo loo xoojiyo xiriirka idinka dhaxeeya adeeg bixiyayaal. ogaada waxaan rabnaa inaan dareeno inaan nahay kulligeen adeeg bixiyayaal. waxaan u adeegnaa bulshada way ballaaran tahay, innaga ayaa matalna. tusaale ahaan degmo kasta halkan waxaan u malaynayaa 4 qof 3 qof ayaa ka jooga. madaxa hay'adda diikooni ee Puntland Muna Yuusuf ayaa faahfaahisay qaybaha mashruuca ay ka caawiyaan degmooyinka 6 ah. mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa 6 degmo ah idinka ka timaadeen ayuu ku kooban yahay. wuxuuna iskugu jiraa 2 qaybood oo ah qayb dimuqraadiyadda iyo qayb maamul wanaaga oo ay raacsiisan tahay xoojinta xuquuqul insaanka iyo magaranaysaa waxyaalaha ka dhaca degmooyinka si degmooyinka maamulkeeda iyo dadka ka shaqeynaya xuquuqul insaanku ay xiriir fiican u wada yeeshaan si wada jiran ay uga wada jawaabaan waxyaalaha xadgudubyada ka dhacaya degmooyinka. gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowladda Puntland ahna siyaaya xilka gudoomiyaha Nuur Ciise Maxamed oo si rasmi ah u furay tababarkan 2 cisho socon doona ayaa bogaadiyay sida loo doortay degmooyinkan oo kala bari ay ka leexsan yihiin laamiga dheer. runtii fursad bay tahay inaan maanta ka soo qayb galo aqoon wadaarsiga ama shirkan halkan ka socda way ka kooban yihiin bahda caafimaadka, garsoorkii, booliskii iyo xuquuqul insaanka. intaba waa dadkii serviceka ama adeega bixinayay oo laf dhabarka u ahaa hawlaha degmooyinkaas ka jira. hay'adda iyo madaxa xuquuqul insaanka Puntland way ku mahadsan yihiin sida ay u doorteen mashruucaas inay degmooyinkaas qaybtooda ay ka durugsan tahay laamiga ama ka leexsan tahay sida ay ugu ikhtiyaareen ugu doorteen. aad iyo aad ugu mahadsan yihiin oo runtii waxa lagu farxo. intaa kadib shaqada dowladnimadu waa intaas oo la xoojiyay. dib hadduu dhaco waliba hay'adna ay soo badanayaan hawlaha falalka aan wanaagsanayn. haddii loo helo caafimaad dhakhtar wanaagsan oo si fiican oo daacadnimo u baara, booliskii oo soo qabta, CID xeeraalintii cafwan waa ka booda marka hore la maxkamadeeyo. marka waxaa malaysa halkaas inay isku aadan tahay waxba aan ka khaldanaan. mashruucan sida la sheegay in badan buu soo socday. waa hubaa inaad si wanaagsan uga faa'iidaysateen. mashruuca maamul wanaagga iyo dimuqraadiyiinta ayaa degmooyinkan ka soconayay muddadii 3 sano ahayd ee la soo dhaafay. Maxamed Saciid Qoslaaye, Puntland TV, Garowe.